بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي أحمد محمد علمي سوري بعد يوتيوب channel علم أونلاين أكاديمي waxay noo socda kooraskeenii managerial accounting buga aan tixraacno waa buga la yiraahdo Garrison magacaasu ku caan yahay waxaynu ku jirnaa chapter 5 cost volume profit relationships عشرة ما أنت قادرنا وعشرة كوفية سمنات chapter 5 عشرة قدام بي واحد نكجها ليني sensitivity analysis واحد that means واحد if there is a change هدوي هذا أما fixed cost كيس بدشوا أما variable cost كيس بدشوا أما volume كيس بدلوا أما selling price كيس بدلوا how this is going to affect your profit سيدي بفائدة هذا أوصامين marka dhowr siyood baynu eegnay mar fixed cost kaynu bedelay mar variable cost baynu bedelay mar selling cost baynu bedelay selling price baynu bedelay dhowr wax baynu sameynay markii ugu dambeysay Allahumma salli ala Muhammad markii ugu dambeysay waxaan sameeyay change in fixed costs sales price iyo sales volume intaasaynu bedelay dabadna waxaynu aragnay inaanay u fiicnayn shirkadda sidaasi marka waxaynu decision ka waa inaan la qaadan income statement kii baynu barbar dhignay waxaynu aragnay in loss la helayo shirkadu loss galayso dabadna waxaynu yiri we will reject that proposal sales manager ka proposal kiisu waan diidnay ashirka maanta waxaynu eegaynaa change in variable cost fixed cost sales volume labadii waynu bedelay labadii cost ba variable cost ki iyo fixed cost ki waynu bedelaynaa sales volume kana waa bedelaynaa refer to acoustic concepts is original datadeennii hore tixraac as before the company is currently selling 400 speakers per month. شركته وحيجيني 400 speaker بشيبة. لكن the sales manager would like to pay the salesperson a sales commission of 15 per speaker sold, rather than the flat salary that now totals 6,000 per month. نيجي sales manager كي وتقولي هاي أي نصينه sales manager commission هل كي speaker يبيع ب $15 أي نصينه هل كأي نكسينه $6,000 بشي $6,000 أو fixed cost أو جوكتة أنا كده إنه سلوا لي رجلي واحد هذا حبدي سبيكر اللي يسيان باشني $8 هذا. The sales manager is confident وحقوق العسين يعني that the change will increase استبدل كاسين إنه كلن دونه monthly sales by 15%. أفر بقوله سبيكر بينه يبينني 15% أيقوكر دولار أفر بقول يلحن سبيكر بينه قدر صار بشي بإنت اللي يبينه. Should the change be made? قوان كام سميننا استبدل كا مكون رعنا sales manager كا وحين رأينا أين حسابنا مركب بعد ما يقول change in the sales status compensation from salaries to commission will affect both fixed and variable expenses. نبقى sales manager compensation كودا ومشاهر كودي يوحي لسيناي هذين اللي قبل دلو salary أو لو بدلو commission واحد سامين سالوا ضبع fixed cost كا variable كا fixed expenses will decrease وحيران دونا 6,000 from 35 أي هاي المرتي هوري to 29,000 بينهم دولار لحكم باقي قاعدة لحدا كنا مشاركة وحي هاي fixed expenses في هاي variable expenses per unit لكن يدو will increase ويكون by $15 because $8 بنسين إن هالكي speaker با مركا variable cost كنا واحد كوكو ريزا $8 هالكي speaker با from 150 بقول يكون تباي هاي واحد يقدر تا 165 وعشان يسمى كاسا كبيرة because هو variable cost وهي وهالكي speaker با ديرات ذكرت معنا cost كاس هالكي speaker يبيع مشان $8 بيقعدني and the unit contribution margin will decrease هذه variable cost كي أي كوردنا contribution margin كي will decrease واحد كيران from 100 واحد نقول $85 بنقول $100 بقى contribution margin كي نمرك يوري لكن ما دام $8 variable cost أي كوسو بيصير مش contribution margin كي نهوس بقى عايز واحد نقول إنت شدة $8 واي contribution margin كو حلوه هلا selling price كأولو كتير variable cost كيني و 165 selling price كيني مين بدلينه 250 بلا 250 و 165 زي كلا جوه هي ده صباح expected total contribution margin with sales staff on commissions هذه أينو لما كاسيلز بنا ده commission كانوا لنا قاتوا $8 هل كيسبت كبقاتها
commission ka ay qaadan doonaan wuxuu noqonayaa 460 speaker ayaa la iibin doonaa kow marka waxa la leeyahay contribution ka waa contribution margin waxaan soo saaray because inagu waxaan eegaynaa isbedelkeenu eegayna maxaa isbedelaya contribution margin keeni 100 ka ahayd waxay noqon doontaa 85 laakiin savings volume keeni baa isbedelo halkii 400 ka ahayd 460 ma noqonayso 460 hadii lagu dhiso 85 oo contribution margin per unit waxay leedahay doonaa 39100 dhinaca kale present total contribution margin xaaladda kale ee iyaduna ah xaaladda imika shirkaddu ku sugan tahay oo ahayd inay 400 speaker iibso iska qaadato $100 oo per speaker ki contribution margin markii hore waxay helaysay eg u fiirso waxay helaysay maxay 40000 imika laakiin waxay heli doontaa 39000 marka haddaynu kala jirno labada contribution margin oo proposalka dambe iyo keeni caadiga ah ee aynu ku shaqeynayna current ka ah difference hoos dhac baa jira decrease in total contribution margin total contribution margin ku way dhici doontaa oo $900 oo negative gelisa laakiin maxaa jira change in fixed expenses baa jira cost structure keeni salaries avoided if commission is paid hadii commission ka meesha uu ka baxo ay qaadan jireen hadii waxaan leeyahay uu ka baxo mushaharkaasi meesha oo meesha commission noqdo waxa inoo safe garoobaya $6000 ee ka go'ay fixed expenses keena marka salary avoided laga taxadiray mushaharkii laga taxadirayo if a commission is paid hadii la commission la siiyo halka marka 6 ku beeru safe gareynta 9 contribution margin keeni total ahaan bay isdhintay labadooda marka increase in net operating income keena waxa ku kulaashan 5,100 ku dhahay hadaba according to this analysis marka aynu eegno analysis kan the change should be made waa in isbedel kala sameeyaa laana 5,100 baa ku kordhaysa again mar labaad the same answer can be obtained by preparing comparative income statement isla jawaabtaana waynu heli karnaa inagoo sameeyna comparative income statement laba income statement baan ka fadhigeynaa okay look here present 400 speakers per month imika shirkadu 400 speaker bay iibisa waynu aragnaayo اللهم صل على محمد halka meesha waxa ka cad lacagta shirkadda soo galaysa oo saleska waa intaas ay ahayd 400 speaker marka lagu dhufto 250 100 bay noqonaysaa variable expense keenu per unit waa 150 marka 400 intaas ay noqonaysaa contribution margin keenu waa 40000 fixed expenses keenu waa 35000 net operating income keenu sidaas aynu ku shaqeynayna imika that situation bay ku shaqeynayna haddaba proposal kan dambe sales manager ku soo keenay wuxuu yiri 460 speaker baa la iibin doonaa hadii sidaa la yeelo kow sales keenu waxay noqon doonaan 460 speaker marka 250 lagu dhigto 115 dhinaca kale variable expenses ka isbedelayso 150 bay ahayd laakiin imika this situation 15 baa ku beeray 160 marka total variable cost keenu inta weeye total contribution margin keenu waa inta contribution margin per unit waa inta dhinaca kale differences ka u fiirso 29000 halkii 35000 high fixed expenses ku 29 bay noqon doontaa halkaan 10100 baa soo baxay marka shirkaddu maxay heli doontaa 10100 haddii ay xaaladda qaadato ya differencegeen eegana labadan maxaa difference ya already 5000 waynu qaadan jirnay ay ku fiirsaya 5000 faa'iido waynu qaadan jirnay markaynu 400 iibinaynay oo fixed expenses keenu inta ahaa variable expenses per unit na inta laakiin imika this time markaynu fiirino markaynu eegno allahumma salli ala muhammad markaynu eegno halka waxa ka muuqata marka waxaynu save gareynay $6,000 maxaa dheeraada marka 900 waa contribution margin keeni waxa horta differences keenu weegna labada sales waxa differencegoodu uu yahay 1 minute aadankii weeye way marka hadii ay shirkadu qaadato go'aanka oo ay commission u bedesho salesmanada saleskeedu 460 buu noqon doonaa net operating income keeda intaas uu noqon doonaa 10100 kii horena muxuu ahaa net operating income ku wuxuu ahaa markii hore 400 la iibiyo ee xaaladdu sidaa ahayd 5,000 difference-ga markaad eegto labada markaan kala jirno increase waxa jira 5,100 5,100 baa inoo soo kordhay
okay halkan differences ka hada leegto sales ku difference good waa 15,000 labada sales sideen kala jirno labada variable cost sideen kala jirno 15,900 900 bay simi doontaa contribution margin keenu 900 marka laga jaro negative because fixed expenses keenu hada doonto decrease ba ku dhaxay bay yani fixed expenses keenu waa decrease oo 29,000 minus 35,000 marka ka jirno minus 6,000 baa soo baxaya 6,000 ka fixed expenses ko ay yaraadeen dhinaca kale maxay noo tahay operating income keena ay kordhinayaan haddii fixed expenses ka ay yaraadaan inta ay yaraadeen waxay kordhisaa net income ka xagga hore maxay ku haysanay 900 oo negative ah oo way 900 laftigeedu dhinaashiyo way marka 900 minus into minus 6,000 laba minus meesha ku jira minus into minus kale oo hadii goor waxa la kala jiraa egg contribution margin ka iyo fixed expense ka labadooda kala goyn baa u dhaxaysa kan dambe marka la 900 minus into minus because laba minus baa isku dhacaya marka positive bay meesha noqonaysa marka kan 900 waa negative oo way sidintay marka 900 oo negative iyo 6,000 oo positive 5,100 dheeraad jira anyway had iyo goor waxaan eegnaa maxaa hadii aynu sidaa aynu qaadano oo sidaasuna ay jirtay what's the difference only waxaan eegnaa what's the difference halkan waxaad ku aragtaa 10,100 baa la helay difference ku 10,100 baa aha laakiin already 5,000 waa la helay markii horeba marka maxaa ku soo kordhay waxa soo kordhay 5,100 sidaa daraadeed waxa weeye go'aankan wala qaadanaya because waayo net operating income keena oo ah profit keeni will increase by 5,100 bay kordhaysaa halka 5,000 ka qaahelaysa faa'iida you will get 10,100 difference kuna maxay 5,100 marka waa in la ogaado sida xiriirka ka dhaxeeya arrimahan marka maanta waxaynu eegnay hadii ay isbedesho variable cost-ki iyo fixed cost-ki iyo sales volume-ki sidee bay xaaladu noqon kartaa marka sales manager kan proposal-ka uu keeno يبقى السويدينية ما قاعدنا مثل ما قاعدنا هنا بكوين وحي لا تذكريها وأن تجابنا حسابنا تبينو حليقنا what's the difference what's the incremental expenses أما incremental income أما revenue كسوكر في اليوم حي مثلا فينا على كل حال increase in net operating income في نوح وكل دولة شكل يبقول وأنا وين جا أرجع شكل يبقول بخصوصه تسمعنا بس حاجة income زي ما كان كأنه comparison ka 5,100 baa soo darsamaya hadii aynu xaggan eegno contribution average kana aynu eegnana oo aynu contributions ka eegno taana waxa xisaabta inuu ku jiro ashirkeena maanta inuu joogo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh